asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maalin wanaagsan, habeen wanaagsan hadba kaad joogto. ayadoo la fiirinaya xaaladda uu caalamka ku jiro maanta, xaaladda taagan ee aan la wada soconno, qodobka ugu farxadda badan ee ay dadku dhegta u taagayaan waa inay maqlaan noloshii ayaa dib u soo laabatay. متنفس وفرصة للانطلاق، فما كان طبيعيا قبل أسابيع أضحى استثناء ونادرا في بعض الدول. فمع بدء تخفيف القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا، markii la fiiriyo in xaaladda caalamka hadda ka taagan ee ah in dadku guryaha joogaan, in goobo badan oo ganacsi la xiray, gaar ahaan wadamada ku dhawaaqay go'doonka iyo xaaladda degdega, in arrinkan uu saameyn toos ah dadka ku yeeshay noloshooda. waxaan arkaya warbixin ka hadlaysa Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska oo xaaladoodu ayna wanaagsanayn, maadaama dadku inta badan ay ahaayeen dad noloshoodu ay tahay in ay subaxdii baxaan, soo shaqaystaan, habeenkina imaadaan. laakiin markii inta badan la xiray goobihii ganacsiga, xaaladoodu waxay noqotay mid adag. arrinkaanoo keenay in dhegta loo taago war kastoo leh in noloshu ay dib u soo laabanayso, inkastoo weli cudurkuuna dhammaanin, faraxunna ku haya wadamo badan. haddana waxaa jira dowlado ku dhawaaqay in ay khafiifiyeen xaaladda xiritaanka, noloshuna in ay dib u soo laabanayso si tartiib tartiib ah. muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa arrinkan, warka farxadda leh ku aadan cudurkan. haddaan ku bilowna dalkan qatar, shirkadda dad badan wada yaqaanaan ee Qatar Airways ee diyaaradaha oo muddo 2 bil ugu yaraan diyaaradaheedu ay fadhiyeen, ayaa ku dhawaaqday maanta oo Arbaco ah in bishan hadda aan ku jirno May dhammaadkeeda ay shirkaddu dib u bilaabayso duulimaadyadeedii, in ay ku bilaabayso 15 ilaa 20 beri kadib in ay 50 dal duulimaad ku tagayso, bisha ku xigtana tiradu ay gaarayso 80 dal. arrinkan oo ah mid tartiib tartiib ah. sidoo kale dalka gudihiisa waxaa la furay meelo badan oo xirnaa ayaa dib loo furay maalmihii lasoo dhaafay. dhinaca Maraykanka, Donald Trump wuxuu kala diray guddigii uu u magacaabay markii hore in ay la tacaamulaan xaaladda fayruska, asagoo leh qaabka ay la dhaqmeen ma wanaagsan. laakiin ayadoo arrinkan jiro, wuxuu ku dhawaaqay in ay noloshu dib u soo laabanaysa Maraykanka, in shaqooyinku ay dib u bilaaban doonaan. dabcan Donald Trump waa nin caqliyad dhaqaale leh, wax ugu muhiimsan oo fiirinayo waa dhaqaalahaas. wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqa suuqyadu ay dib u soo laaban doonaan, waxaana xusid mudan in malaayiin Maraykan ay shaqooyinkooda waayeen asaabiicdii lasoo dhaafay. arrinka kale ee daliisho in xaaladda Maraykanka xoogaa si markii loo fiiriyo ay khafiifayso ayaa ah markii ugu horreysay 2 bilood ayuu Trump ka baxay aqalka cad, wuxuuna tegay Arizona. waa markii ugu horreysay ee uu muddo 2 bilood ah oo ah markii uu Maraykanku gaaray fayruskan in uu ka baxo aqalka cad. dhinaca wadamada carabta, wadanka Urdun، أعلنت الحكومة الأردنية السماح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل. Urdun wuxuu ahaa wadankii ugu horreeyay wadamada carabta ee ku dhawaaq xaaladda degdega ah, in magaalooyinka la xiro, in aan la isu gudbin, in goobaha ganacsiga la xiro. wuxuu ahaa wadankii ugu horreeyay, laakiin wuxuu ku dhawaaqay noloshu in ay dib u soo laabanayso, in ganacsigii meelo yaryar markii laga reebo sida hoolalka jiimka, masaajidda, inta kale in ay noloshu dib u soo laabanayso. arrinka xusida mudan ayaa in wadankaas Urdun muddo 8 maalin ah uuna diiwaan gelinin wax xaalado cusub ah oo la xiriira fayruskan. dhinaca Jarmalka, wadanka lagu tilmaamo in uu yahay Yurubkan sida wanaagsan oo la dhaqmay xaaladda, in ay markiiba xakameeyeen, ayadoo la fiirinayo in nidaamka caafimaad ee Jarmalku uu aad u xooggan yahay. haddaba Jarmalku wuxuu ku dhawaaqay in nolosha sidoo kale ay dib u soo laabanaysa. maalintan arbacadan aan ku jirno ayay Merkel waxay la kulantay, waa dhinaca fiidiyowga, 16 gobol ee federaaliga Jarmalka madaxdooda, kadibna waxay ku heshiyeen ama ay amartay in dhammaan goobaha ganacsiga dib loo furo, in goobaha ganacsiga dhammaan dib loo furo ayay soo saartay. arrinka kale xusida mudan ayaa ah in Bundesligaha horyaalka kubadda cagta Jarmalka sidoo kale maalmo aan fogeyn kadib 16 bishan in dib loo furi doono oo ciyaaruhu ay dib u soo noqon doonaan. sidoo kale guddiga muslimiinta Jarmalku waxay sheegeen in ay bilaabanayso ku tukashada masaajidda, in jamaacadii ay masaajidka ku soo laabanayso, laakiin waa si tartiib tartiib ah. sidoo kale wadamada carabta, wadanka Lubnaan asna wuxuu ku dhawaaqay in jamaacada masaajidda ay ku soo laabanayaan, iyo kaniisadaha. waxaan ognahay kristan badan inay ku nool yihiin dalka Lubnaan, in masaajiddu ay 30% jamaacada ay ku tukanayso, in haddii ay ku tukan jirtay 100 qof, 30 qof ay ku tukanayso, taasoo ah in si tartiib tartiib ah ay sidoo kale xaaladdu sida ay ahayd ku soo laabanayso. Talyaaniga iyo Spain
wadamada uu sida xun u saameeyey isbaanishku dhowr maalin ka hor ayayba bilaabeen inay dadku guryaha ka soo baxaan oo ay markii ugu horreysay dadku ku raaxaystaan xeebaha ma ahan inay xeebaha inay ku socdaan wadooyinka korneeshka xeebaha agmaro in dadku ay magaalada u soo baxeen caruurta iyo dadka caadiga ah markii laga reebo dadka da-ahaan aadka u waaweyn ee sida xun ugu jilicsan viruskan talyaaniga oon ognahay sidoo kale inuu yahay wadamada ugu xun ee uu sida xun u saameeyey asna noloshu dib ayay usoo laabanaysaa xataa horyaalka kubadda Serie A-da waa la bilaabi doonaa wuxuuna talyaaniga wadankii ugu horreeyay wadamada Yurub ee ku dhawaaqo laalida ciyaarta kubadda cagta laakiin hadda waxaa muuqato in dib loo ciyaarayo horyaalka kubadda cagta laakiin arrinkan oo ah in ay xaaladdu ilaa heer hagaagtay runtii caalamku wuxuu galay xaalad argagax aanan laga sheekayn karin dad badan ayuuna saameyn ku yeeshay saameyn aanan dabcan laga sheekayn karin dhinaca shirkadaha diyaaradaha kala duwan ee caalamiga shirkado badan ayaa ku dhawaaqay in ay musallafeen sababtoo ah shirkadan ay u shaqaynayaan kaba soo qaadba 100,000 oo qof oo shaqaale ah markii ayna muddo 2 bilood ah wax faa'iido ayna xaqiijinin oo ay fadhiyaan diyaaradu iska fadhiyaan waxay ka dhigantay khasaare aad u weyn Qatar Airways xataa shirkadan Qatar Airways madaxa ugu sarreeya Akbar Bakir wuxuu ku dhawaaqay in ay diri doonaan kumanaan qof in shaqaale badan ay dhihi doonaan waad macsalaamaysantihiin waad mahadsantihiin arrinkaana ku tusinayo sida caalamku daafaha kala duwan ee caalamka shirkadaha diyaaradaha in uu saameyn weyn ku yeeshay viruskan dhinaca kale arrinka keenayo inta badan in wadamada caalamka ay ku dhawaaqaan in noloshu ay dib u soo laabanayso markii laga soo tago in cudurku uu xoogaa in la xakameeyay inuu yaraadima in la xakameeyay ayaa ah xaaladda ka dhalanayso in malaayiin qof ay qarka u fuulaan in ay xaalad macluul soo wajahdo Hindiya ayaa arkayay 120 milyan oo qof dhowr isbuuc 2 isbuuc gudaheed shaqooyinkooda ku waayay oo aan ognahay dadka Hindidu intooda badan inay yihiin dad sabool ah 120 milyan oo qof markii ay wax ay qabtaan waayaan natiijo waxa ka dhalanaysa aan caadi ahayn sidoo kale warbixinta lagu faafiyay BBC-da waxay leeyihiin waxay soo qaadanayaan baaritaan la sameeyay ama tirakoob la sameeyay oo ah in wadamada qaaradda Afrika haddii ay ku dhawaaqaan sida wadamada Yurubka oo kale Talyaaniga iyo Spain wadamadaas kala duwan ee ah in xaaladda bandowga inaan guryaha laga soo baxayn in 14 beri ka badan haddii arrinkan oo kale Afrika uu ka dhaco wadan Afrikaan hadduu ku dhawaaqo 14 beri ka badan in aan guryaha laga soo baxayn la shaqaysanin in ay ka dhalanayso xaalad aanan cawaaqibkeeda laga soo waaqsanin dad badan oo Afrikaan oo la weydiiyay xaaladooda haddii bandow lagu dhawaaqo 14 beri ka badan haddaan guryaha ka bixin waxaa naga dhamaanay dabcan sahiidii aan haysanay arrinkan oo wadamo badan oo Afrikaan ah u diidan in ay ku dhawaaqaan xaaladaas bandowga laba arrin ayaa sabab u ah in noloshu ay dib u soo laabato qodobka koobaad oo ah in inta badan la xakameeyay faafitaanka viruska in la xakameeyay iyo qodobka kale oo ah ka baqidda cawaaqibka ka dhalanayo ee ah dhaqaale burburka iyo musiibada dhaqaale ayaa keenay in dib loo furo goobaha ganacsiga iyo halboolayaasha dhaqaalaha iyadoo laga cararayo in xaalad ka daran viruskan ay ka dhalato waxyar muuqaalka qaybtiisa hore waxaan ku soo sheegnay qodob ahaa in Donald Trump uu ku dhawaaqay kala diridda guddigii uu magacaabay ee la dagaalanka ama la tacaamulka viruskan laakiin war cusub oo hadda soo dhacay intii aan barnaamijka inta badan sameeyay ayaa ah in uu ka laabtay kala diridda guddigaas hawshiisu uu sii wadan doono dhinaca kale wadanka Turkiga wuxuu ka mid yahay wadamada ku dhawaaqay in ay khafiifin doonaan xaaladda xiritaanka in hawluhu ay dib u soo laaban doonaan wasiirka caafimaadka Turkiga Fakhruddin Qoje ayaa sheegay maanta in Turkigu in wadankiisa waa sida uu sheegay uu galay marxalad cusub la tacaamulka viruska in la xakameeyay ilaa xad hawlaha iyo goobaha ganacsigana dib loo furi doono sidoo kale wadamada ku dhawaaqay in ay xaaladdu dib u soo laaban doonto waxaa ka mid ah Denmark, Bahrain iyo wadamo kale waxaan ilaahay ka baryaynaa in xaaladdu sida ay ku soo laabato cudurkaana la waayo